السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta waraysi warbaahinta degmada Qubi la yeelan haysa oday Soomaaliyeed oo sida uu sheegay gabadhiisii si sharci darro looga kaxaystay arintaas oo ah sida kulli dhaqankeena oo arin dulmi ah odaygaas oday adeerkiina u jeedaan oo nin akhyaar ah oo oday ah oo weyn weeye waxa ka dhacay gabadhiisii nin ba sharci darro kaga kaxaystay adeer macaan magacaaga saddexnii sheeg aniga magacayga dhaqane barre Ibrahim dhaqane barre Ibrahim gabadhana waa xaleema dhaqane waan gartay ilaana dhale waan gartay marka gabadha nin baa kaxaystay oo sharci la'aan anoo ka hadlahayo oo baabuurka diyaar oo moobilkayga u geeya inaa haday iyo ayadoo amar la weydiin wax la weydiin qolo inta gacanta qabata qarraf sida oo la tagay marka way guursadeen miyaa inuu guursado ninkan uu kaxaystay gabadha wuu guursaday miyaa gabadha sidee marka ku dhici karta adigoo aan u meherinin inuu guursado sharciga lagu nikaahay sax arrin fiican weeye maanta oo dhan ku daalayay marka baan laga haynin waan gartay marka sheekaas waxay ka dhacday Nairobi ka dhacday Nairobi ka dhacday arrintaayda adiga marka xagee joogtay aniga waxaa joogay ifa habeenka bari hay waa wada hadal habeenkii waa gartay waan gartay subaxina waa wada hadal habeenkii waxa uu sheegay in aniga soo baxay waa gartay oo Nairobi imaanayo waan gartay waa 10 saac ma ogtahay waan gartay baski u horeeyo Nairobi inta ka baxo ifatagay xaq 12 ka soo baxay hordayto kii saddexda saac diyaar u ah boostaajada taagna gabartana markaa boostaadada taagnay waa la hadlay maxkamad baan hortaagna markaa ayada waan gartay furan caadi ah waan gartay ninka gabadha la rooray gabartii iraahda aba baski hore waa iga tagay kii dambe soo raaca ilmaha waa nabadgeliyo iyo aba dhib ma jira waxba isa soo harakayni wiilkii shaqada oo guriga ka baxay yaa ila soo hadlay أنا قبل ساعة ولا هذا أب هذا مركي حد ليس ونما بابود كأتاجناين محكمتنا نقول كقركيس وي حالي ما حف ما لسه محكمتنا لقي هذيك مركي سؤال بقوديني يا قبل ده إن الأم هريسو إن الأم هريسة نينكا ما أوديدي قبل ده نينكا ما أوديدي هذيكو ما ديدا ما أوديدي ما يه أبي هذا إيه ما ذو يرجع قبل هذا إيجار هذا ويل كي قبل تكار هذا ما لو ويديستي أبي هذا أبيه ويل كدالي ويل كدالي واقر يا أنت حبس وينك كساق عيب هذا يركب ويل كي يكون مسوق يا كبرتا يسوق واقر مرك الله هذا هايو ويل كو مقايا هاي وحنتد كلا سمي أباب الكلواي صح waxaan ku weydiiyey gabadha ninka gabadha kala rooray ee la tagay ma taqaanaa magaciisa ama jifadu iyo ma garanaysaa ninka jifa ahaantiisa waa ninka aweyna oo waxa weeyaan samane saxad laakiin waa weli yar arankiisa ay wax waan gartay waa nin kulli saad ii sheegtay waa ninaad garanayso qabiilkiisa maxaad marka hadda rabtaa ma gabadhii lagu soo celiyo gabadhii marka sharci la'aan baa ku soo baxday waalidka labadii waalid waa isdiideen wiilkii waa ka tagay dad kale oo ajnaabi baa dhaxdan galay maxkamadda iyo guriga isku meel ahaayeen gabar meel loo sii qaaday ma ahayn anigoo ayada sababteed u soo socdo boostaday jaagan la hadlay u geeya qaaliga ninka nikaxay u geeya anoo aabaha aan la dhih haddii awla la yiro codkayga haystaa ma ogta ma raadisay intaad aawba lama dhihin ma raadisay marka ma raadisay gabadhii ma raadisay aniga شلا قدام بيسي واتي أروح سيد أبحي سيد أحسن بين مكان أو نيروبي كده رادينيس قولي كده رادين هيا أيها نوع أشياء إفا أو أشياء ملك استوى أو أشياء اللي جبرتها الشرع الآن تهاي إسكسو عريا أم رحلني أيها جباب لا هاي أد بدر ما تصنتهاي حرجين أنا جبرت هذه أنا تهلي دونتيت أو ديب كوسو نقول دونتا وادو جدا نضيع ذير كينها أو gabadhiisa si sharci darraha looga kaxaystay oo aan arin dhibaateynteeda leeg leh marka waxaan ku rajaynayaa adeer macaan waxaan ku rajaynayaa gabadha heli doontid insha Allah aad iyo aad baan ku salaamayaa assalaamu calaykum